السلام عليكم داود واني ودو حسن سيمبا waxaan maanta rabaa halkan inaan ka hadlo dagaalyahanada ururka Xamaas ee ka dagaalama gudaha Falastiin taariikhdooda oo kooban balse intaan u galin warbixintan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto YouTube channelka gudoomiyaha ururka Xamaas waxa lagu magacaabaa Ismaaciil Haniye gudoomiyaha ku xigeenkana waxa la yiraahdaa Saalax Al-Nuuri asaasana waxa la yiraahdaa Ahmed Yaasiin iyo Cabdicasiis Raani iyo kuwa kale oo ay kamid yihiin Maxamuud Zahar Maxamed Taha Cabdilfataax Duqan iyo Ibrahim Faris Yazuri iyo Isha Al-Nasra Ibrahim Quga iyo Maxamed Xasan iyo Shama xubnahaas ayaa aasaasay ururka Xamaas ee ka dagaalama gudaha Falastiin waxaana la aasaasay December 10 1987 35 sano ka hor waxaan lagu magacaabaa Ikhwaanul Muslim xarunta dhexe ee magaalada Gaza ee marinka Gaza ayna ka dagaalamaan garabka ciidan ee helaan waxa weeyaan Ciise al-Diin al-Aqdam iyo guutadiisa wadamada waa aqoonsaday argagixisada ururka Xamaas waxa kamid ah dalka Australia, Canada, Midowga Yurub, Israa'iil, Japan, Baraarugay, boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka sanadkii 1987 wax yar kadib markii uu dilaacay intifada koowaad ee ka dhanka Israa'iil Xamaas waxa aasaasay imaam Falastiini ah iyo dhaqaale oo lagu magacaabi jiray Ahmed Yaasiin waxa uu ku soo baxay mujaamacada al-Islaamiya kaas oo lagu aasaasay Gaza 1973 urur samafal ee diineed oo kulul leh ururka Ikhwaanul Muslim ee fadhigoodu u yahay Masar Xamaas waxay si isa soo taraysaa ugu lug yeelatay iska hor imaadka Israa'iil iyo Falastiin dhamaadkii 1990 falal rabshado ah oo ay aqoonsadeen Israa'iil iyadoo raadinaysa xal laba dowladood ah Xamaas waxay sii wadeen u doodista iska caabinta hubeysan ee Falastiiniyiinta Xamaas waxay ku guuleysatay doorashadii sharci dejinta ee Falastiin 2006 48 waxay heshay aqlabiyadda golaha sharci dejinta ee Falastiin 49 kadib waxay la wareegtay gacan ku haynta marinka Gaza ee Fatah 2007 laga soo bilaabo Xamaas waxa ay dhowr dagaal la gashay Israa'iil waxayna taariikh ahaan raadisay dawlad Islaami ah oo Falastiiniyiin ah oo ka sareysa dhulka ay isku dartay Israa'iil daanta galbeed iyo marinka Gaza iyada oo diidaysa xalka labada wadan 53 ilaa 54 Xamaas waxay bilowday inay aqbasho wada xaajood ay la gashay Israa'iil iyo xuduudaha 1967 iyo heshiisyadii ay la gashay Fatah 2005 2006 2007 culamo badan ayaa soo wariyay in axdiga Xamaas ee 2017 ugu yaraan mabda ahaan ay aqbaleen dawladda Falastiin oo ku taala xudunta 1967 marka la eego mabaadi'da fikrada ee islaamnimada waxay kor u qaadaysaa wadaniyadda Falastiiniyiinta ee macnaha islaamka waxa ay raacday siyaasadda jihaadka halganka hubeysan oo ka dhana waxa ay leedahay garab adeeg bulsho dawo iyo garab military xukuumadda Xamaas waxay dabada ka rixday isbedelka saameynta weyn ku yeeshay shariicada islaamka ee marinka Gaza tan iyo bartamihii 1990 Xamaas waxay caan ku noqotay bulshada Falastiiniyiinta dhexdeeda sabab la xiriira musuqmaasuq la'aanta iyo mowqifkeeda ka dhanka ah ee Israa'iil weerarada kooxda oo ay ku jiraan isqarxinta ka dhanka ah bartilmaameedyada rayidka iyo weerarada gantaalada ayaa u horseeday in loo aqoonsado urur argaxiso isku dayadii 2018 ee lagu doonayay in Xamaas lagu cambaareeyo finalka argagixisnimo ee qaramada midoobay wuu fashilmay Xamaas iyo Israa'iil ayaa dhowr dagaal ku dhaxmaray marinka Gaza kuwaas oo go'doomin ku jiray 2018 2012 ilaa 2014 balse dagaalkii 7 Oktoobar dhacay 2023 Xamaas waxay Israa'iil ku qabsatay lama filaan jabisayna xindaabka Gaza weerartay saldhigyo ciidan waxayna xasuuqeen dad rayid ah waxayna qafaasheen shacab iyo askar dibna ugu soo celiyeen Gaza Israa'iil waxay ku dhawaaqday dagaal waxayna weerartay Gaza waxayna ballan qaaday inay burburinayso Xamaas balse Xamaas oo sanadadii ugu dambeysay sababulaysay cududeeda ciidan oo aad u adag yahay ayaan dhag jalaq u sinin daawadayaal waxa halkan nooga eeg warbixin kooban oo ka soo diyaariyay xiisadda Falastiin